waxaa muddooyinkii u dambeeyay ka soconaya deegaanada gobolka Mudug dhismaha maamul samaynta deegaanada iyo degmooyinka gobolka kuwaas oo dhammaan intii la soo dhisay ay ahaayeen maamullo ay soo magacowday wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug balse bulshada ku nool deegaanka Eeldiwir ayaa iyagu noqday bulshada kaliya ee soo doortay maamul iyagu doorteen taas oo ah mid muujinaysa isku duubnida iyo wada shaqaynta bulshadaasi maamulkan oo ah kii lixaad oo ay doortaan bulshada deegaanka Eeldiwir ayaa waxaa munaasabada lagu caleema saariyay gudoomiyaha cusub ee deegaanka Eeldiwir Xasan Cali Xasan ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ay kamid ahaayeen gudoomiyaha gobolka Mudug gudoomiyaha maxkamadda gobolka taliyaha qaybta booliska gobolka gaashaan la dhexe Qaasim Shirdoon Cali waxgarad iyo dhammaan bulshada qaybahooda kala duwan ee ku nool deegaankaasi munaasabadan ayaa intii socotay waxaa ka hadlay bulshada qaybahooda kala duwan kuwaas oo ugu horreyn u mahad celiyay gudoomiyihii hore ee deegaankaasi Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale oo haatan ah gudoomiyaha degmada Gaalkacyo ay xuseen in muddadii uu xilka hayay uu wax weyn ka qabtay horumarka deegaanka sidoo kalena ay soo dhaweynayaan gudoomiyaha ay doorteen Xasan Cali Xasan taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug gaashaan la dhexe Qaasim Shirdoon Cali ayaa isna sheegay in bulshada deegaanka ay ka gacan siin doonaan arrimaha amniga waxaan leeyahay gudoomiyaha cusub ee Eeldiwir soo dhaweey gudoomiyaha waxaan leeyahay waa soo dhaweynaya hadda maanta waxaan eedankeena xeelay Eeldiwir waa keeni doona hadii la yiraahdo insha Allah munaasabadan ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Mudug Abukaati Cabdirasaaq Cali Yuusuf oo sheegay in bulshada deegaanka Eeldiwir ay yihiin bulsho ku dayasho mudan sidoo kalena ay gacan ka siin doonaan hagaajinta garsoorka gudoomiyaha cusub ee deegaanka Eeldiwir Xasan Cali Xasan ayaa ballan qaaday in halkeedii uu ka sii wadi doono horumarka ay deegaanka ka sameeyeen maamuladii isaga ka horreeyay una ka shaqeyn doono wadadii ay mareen waxaan rabaa sidoo kale inaan halkan ka codsado maxkamadda iyo gobolka iyo taliyaha booliska hortooda waxaan kaleeto ballan qaadayaa inaan ku shaqeyn doono tala bixintiina sidii kuwa ugu shaqeyn jiray waxaan kaleeto la shaqeyn doonaa maamulka iga sareeya haddii leeyihiin gobol iyo haddii leeyihiin maxkamad iyo haddii leeyihiin taliyayaal ugu dambeynna gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal oo goobjoog ka ah xilka lagu wareejiyay gudoomiyaha cusub ayaa la dardaarmay maamulka iyo shacabka Eeldiwir waxaan aad ugu dardaarmayaa asagoo dardaaranay gudoomiyaha magaalada gudoomiyaha waxaan rabnaa ka maamul ahaan dadka lagu dhaba barnaamijkaas waxaa weeye dabagal baa hadda sanadkan bilownay in qofka liita la siiyo Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo.